koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan arreer kalamaanow kulun sintiin geega ananu korasiinku kooyi korjirina kaayalandhike kooyoni walkalaan kale walle ere ma iinkeededen ba'digay madeeyo war ma ogaad tahay dalka intayd ka maqnayd wax badanaa isbeddeleen arrow aryadhaha maday meeldheer ma jirin dalkana kama maqnayna waxau jiray meel adoogu aaw yahay aadaa habartu ay tahay digaarkuna ariir yahay gabartana ariiray ow ayaamahaan jiray cabdulla waxaa warkaaga u gartay maday anugu xuduraan ku malaynayey inuu ayaantaan gasarta jiray istaakfirulla eebow gasar ha nugu ridin war gooyagin biinsilika siibi gansar maysiin arnee gasarti iyoonay gooyomar intiin dhehayto galgaladaaya war maydaan fahmine maday Soomaaliland waa la aqoonsaday buu yiri war maday adigaan fahmine ra'iisul wasaaraha waa la ansixinayaa buu yiri aroo doorasho qof iyo codaa la qabanaa maasiri maday horta nimayow ra'iisul wasaaraha waa in la ansixiyaa cidii diidana waa in la kala diraa sababtoo ah waqti la isjijiidaa ma harin war anigu baarlamaanka waxaan dhihi lahaa baarlamaankii dalkeenoo biloodii dhammaystay ra'iisul wasaaraha buriyeenkan kale bedelaya berigu hor yimaado ma baasgarayni talo mise way ka bakhayli warnamiyow ra'iisul wasaare khayr markii hilka diji ra'iisul wasaarihi reejay la magacaabay aan hambaliyay ka dambe may hees ee ka dhaway geedkii aan shagoon abuurni madi miro biyoy gaduudadi adihiido ku gooytiki rajada markii dhamaatay had i goorana naa wilaay khayrka ka gaabiyay maayki aramadeeyo ra'iisul wasaarahan roobla la yiraahdaa ma taqaanide intiid maqneedana la magacaabo anakan hurdaan ku jirni ariya maday saaqo war ma hayside maday mursalo doorashada qof iyo codka aheed madaxweynuhu uga baxay wuxuu yiri shaleedeya shiblay haade shantii salaado sankile idaafte kuye cabdullow maday waa tanaasul ra'iisul wasaarahana waa ansixinaynaa miyo ka wada shiido bogsowa shimbiro in weere intaas ma ku dari warwarka waa iga dhex gasheen anu waxaan dhihi lahaa umuur weliba yoomkeed ayay yoofil bixisaaye yalkii iyo dabaylihii rogmadayuu canaa jiray yididiiladeennii hadduu yimid warkeediiye yaaradii jarya waxaa ku-xigi yala lax roobaade yeera ololo gaawaha haddaa loo yabyabayaaye gaajadii haddeera yumbani mooliyagaayugane wax soo saarkii yaambiyo dhowaan yicibay waa muushe yatiintii insha allah hadday dharagyabaqlayne yada wada jiraa qarnimada ku yirbixiya oo yeelamsada aar iyay ka celiyaane yacdu sagow hawoon dhowrahay fula yiraahdiine ku yotaa midnimo guud yur iyo kala tag yaahu horta leen yahaasgaadi yaahu ma yaasiin wala walaari abwaankii hobiyo ka kooyo warka may baan goraday ha ra'iisul wasaaraha dhanko wala aan hal ansahiyoy war abwaanka risii jacarow ka yimid waligiis hobiyo ma tagin ilaahay riski aan gelin ariya macluulow riski waa midkaad buu looga soo carartay inaad ka duceysatana garad u leedahay aryaadaha wariya dhammaantiis anigu waxaan dhihi lahay ra'iisul wasaare rooble waxa u taala shaqa 4 bilood oo 4 sano ka dhib badan muga anigu u hambaliyay maayo waase ugu duceeyahay in ilaahay u fududeeyo waxaan dhihi lahay ra'iisul wasaare rooblahan rarka uu yaal raabow laaqad ra'iisul wasaare rooblahan rarkan uu yaal raabow laaqad war baarlamaanka inta la gaaran ra'iisul wasaaraha kalmaana waan sixisay warnamiya walaa uusan jiraan jirey geeg dhan kuraasan lankomaday mursal la jili leeraa rooga sababtoo ay ra'iisul wasaarihi kan koray 7 daqiiqadood akridi kan 5 daqiiqadood kan sii doonay nisuureerideen arada reer kalamaano maanta ra'iisul wasaaraha waa ansixideen laakiin waa idin aqaanayo biriyaad xaga doontiin wargooyo horaa waxa loo yiri nin xil qaaday eed qad war mas'uulka hadduu wanaag sameeyo kalama waa sheegtaa wanaagiisa hadduu xumaan sameeyana dhaliishiisa sheegtaa horana waxa loo yiri dhaleecada mar waa lagu saxaa madaxda dheegoowe dhadhaabaha ninkii hoos galshay dhuhan qariya anigu kollayba ra'iisul wasaaraha waxaan kula dardaarmi lahaa madaxweyne farmaajo haddaad 1000 jeer wax ka yeesho asaad hal mar wax ka diido 1000kaas jeer kuugu dul qaadan maayo aad wax ka yeeshay halka mar uu kaaga taqalusayay iska ilaali arrinta ra'iisul wasaaraha haatan la hambaliyaynayo haliye iyo midku hooga noqon waan hubsanaya war lanka ra'iisul wasaaraha isan hambaliyo haytan haliye hoobanaga dalkiyo dadkii diinta anfaad doona hoobus humaado
korona gaaro forwal ee buur korjaa kula daraan dariyaana ka ari war anigu baarlamaanka waxaan dhihi lahaa bulshaa idin sugayso dad baad ballan u qaadeene baabacada midig baad kitaab ula bareerteene bilaahi diyo dhaartaad gasheen ma aha beenbeene adduunkuna bukaar maaha iyo kaydad baaqiye waa barrin gashiino dhawaan laga baxayaaye adinkoon baraar hursigiyo biligta eegaynin u birmada bah Soomaaliya shacabkan bay hoofe waa runtaa hore waxa loo yiri ninba wuxuu ku dagan yahay halka uu daacad kaga haro anna waxaan ku dari lahay ho dadkan yu daacad oo raaba dalkuna kidib u dhisa dadkan yu daacad oo raaba dalkuna kidib u dhisa Abdullah shirabkaaga waxaan u gartay inuu ra'iisul wasaaruhu injineer yahay dalkan uu dib u dhisi doono aan warkiisa waliba aan goraday inoo fuundi baalga muunteedata ra'iisul wasaaraha inuu dal dhiso looma dirine inuu doorasho qabtaa laga rabaa Abdullah raaga wuxuu yiri Allah u naxariistaa hadda koor haddaadan daawanayo dhismahan ka qabsan daantaada adiga kii ku soo dirayba waa leedin dilaya marka dalkan qofkan dib u dhisayna ma dumintiisu ka qayb qaadanaya waraayo kulmiye waxa ka maqli jiray haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada war anigu seeftan kalamaan labada af leh baan nacay waraada adinkoon ku mashquulin kalamaan iyo kulmiyaba waxa idinkaga filan kulama jirto kaamana jirto markay rabtaa ku qaniintamiya war hees wasiir bayle sameeyay waxa ka mid ahaa dalku hore ha u socday ka daa hooska qariinka bayle heesis mayba ka dhimanaytay waa israadiye bahashir amsiga ka daaya war nin kale oo bayle ku taageeraya malaha wuxuu yiri dalku hore ha u mare ka daaya hogaamin leexsan aryaadaha bariga gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo lugay ayaa la arkay majid gooyooyinka yaa ku tagay horta wali jar ilaahay ba oga laakiin waqtigii nabad in oo dadka shal reebeeno irto ku hiridayeen wal rooga war mar hore Cabdi Xaashi aqalka sare albaabada laga xirtay haddana majidadka loogu daray war Cabdi Xaashi asaga khayr shal way kulmeen misu taasiinayeen ama xageen ka bilawnay dhahayeen wareer kala maalo idinku wax ma hubsatiin gudoomiye Cabdi Xaashi maanta abwaan Cabdidhuuxo xanuunsan ayuu soo booqday asagoo lugaynaya warnin Soomaaliyeed suugaanta aad u tixgeliya wuxuu yiri sidii qaranku u burburay wax heesoo murti taabanaysa darajii xilliya mudan ka dhageyst war heesaha dambe jacaylka soo baxayba heesta naftaydu naf bay rabtaa naftuna naf kale rabtaaba ugu macaawaana isla Cabdidhuux war khayr isagoo abwaan Cabdidhuux soo booqan oo dhacaye talo farmaajo iyo roob leh ma iyagoon booqan dhici doonaan iyaguna akusaadin afka Allah ku naqo aryaa war ma haysida xaqayla dhaamina waxa la yiri waxaad barata waa baaska wareedo kulmiya may ka dhageensada jiray nabadii nolol wal iskiirin ahaayeen nabadii batay nolol yaa herti laakiin kii aan hatana nolol naftiya lugfayl ma ka teegan war ma hayside khayr waxa la baxay amaano iyo adeeg aryaadaha khayr muga xilka laga qaado miyo siyaasadii ka baxayo xawaalado furtay kullay may la reey darawalkii wareera naamlee inaga busteejida seede war ma haysana xaray saqdii dhexe aroob ma yimidne ana naftay hajeeday hurishay dheegay war hurushaadaada ma miina mujaahida yaaqshid ka kacday waxayna la kacday saddexdii nin ee aasay aryaadaha kuwa balaayada rakibaya xalay ayaka ay la kacday waxaan dhihi lahay wax dhanbaad shirqool soo wadiye keeli shaaqilida dabkii aad shidaysay hadduu shiilay hilibkaagi shukri abawayiyo fariin lagu shifoobaye war ma haysiine shabaab waa kuwii habeen hor dhuusa maraab tuuriyey saakana waa lagu dhaalmadaa la yiri hadda bulacle ma la yiraa hadda ba'ayda ka yeeraysaa la yiri aryaadaha lamada dhinac bulacle isku helay ba'aydu yay ku dambaysay garuheel lama nin kama wada qoslisee arooda war ma haysine Soomaaliland waxay tiri doorashada Soomaaliya ka dhacaysa nama qusayso dal madax bannaan oo gooni u taaganna waa nahay caalamkaanu ku dacweynayna wixii faraxna la soo galo aryaadaha anigu waaba ku wareeray stationka caalamka ee loo dacwoodo intuu ku yaal war Suldaan Geedigaabo soo ma taqaanid war yaa Soomaaliland Taiwan bay saaxiib la tahay yaana idin duqaynina ka jooga war yaa Soomaaliya bay Itoobiya saaxiib la tahay walaalkeen abi Sooma waayaan ma aragtay war madaxweynaha Soomaaliland wuxuu baarlamaanka horgeeyay xeer ka hadlaya suuqa ganacsiga xorta oo laga sameeyo magaalada Berbera warnamiyo maysin warsaday abi Ahmed ganzabti bedelay war yaa saaxiibada Soomaaliland maxaad imaaraadka uga reebteen arada dekada Berbera hadda kadib cashuur ma laga qaadayo miya wari awlaada faana aan gurto aadi hore guurstay mataro war yaa Masarti naga carootay saaxiibada Soomaaliland ma ku biirtay horta aryaa qadaraaba noo joogtay xaan Masar ku falayna war yaa Turkiga ka muhiimsan Masar waban war yaa war waa dhintay
joojiye